أكاديمية goboleedka afka Soomaaliga ee magaceeda loo soo gaabiyo AGA ayaa tababar ku saabsan habeynta afka Soomaaliga iyo suugaantiisaba u qabatay konton dhalinyaro ah oo daneynaysa akhrinta iyo qoraalka afkeen hooyo. Gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee Hilin iyo Hayaan Cabdulqaadir Cabdi Juba ayaa uga mahad celiyay Akadeemiyada AGA tababarka ay u qabatay dhalinyarada ka tirsan naadigaasi. wuxuuna kula dardaarmay dhalinyaradaasi inay ka faa'iideystaan casharrada ay ka qaadanayaan aqoon isweydaarsigan. waxaan sidoo kale marna aanan ilaawi karin doorkii iyo kaalintii ay nasiisay ama ay ka qaadatay Akadeemiyada Goboleedka af Soomaaliga AGA xaqiiqan sheegayna cidna waxa waaye waa haddaad ibni aadanka hadday abaalkooda haddaad kharsaan waa adduun aqar waa dhibaato waxaan marna aan kaalinteeda iloobi karin oo fursadihii naadigu wuxuu sameeyay barnaamij wuxuu sameeyay akhriska iyo qoraalka ee aan ku qabeyn dugsiga gobolka Banaadir 2015 iyo 16 waxaan aaminsanahay haddaysan AGA ahayn barnaamijkaas ma qabsoomi lahayn haddaysan AGA la'aanteed barnaamijkan suurtagal waayo tasiilaadka aan ku dhaqaaqayna iyo buugaagta bandhiga aan ku sameeynay waxay ahayd wax nooga yimid AGA aan runtii u mahad celiyayno. qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qabtay tababarkaasi ayaa muujiyay sida ay ula dhacsan yihiin aqoon isweydaarsigan ku saabsan habeynta qoraalka iyo akhriska afka Soomaaliga iyagoo codsaday in la joogteeyo tababarada noocan oo kala ah. wixii maanta aan ka faa'iideyno insha Allah ardayda dadka kalena waa sii gaarsiin doonaa. waxaan rajaynayaa Akadeemiyada amnaadiga inuusan maanta kaliya uusan waxaan qabanin uu sii balaariyo uu sii weyneeyo uu gaarsiiyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed. haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay shalay macnaha ay ahaayeen kuwa waxyaabo xun lagu eedeeyo maanta inaan u taaganahay inaan dib u soo ceshano talaabna aan u qaadno sidii afkeena aan ku horumar lahayn ima muuqato in afkeena lumay sida maalmahan baydacadaha ka maqleynay waxa ay muuqata rajo ah in aan maanta talaab u qaadno sidii afkeena u horumar lahayn. gudoomiyaha Akadeemiyada Goboleedka AGA Professor Maxamed Daahir Afrax oo tababarkaasi furay ayaa sheegay in akadeemiyadu ay dhiirigelinayso cid kasta oo daneynaysa horumarinta afka Soomaaliga isagoo ku booriyay dhalinyarada Soomaaliyeed inay u soo jeestaan sare u qaadista akhrinta iyo qoraalka afkeena hooyo. waa sababtan idin tababarayno idin la wadaagayno wixii magaranaysan idin si faa'iideyn karo idin ku dheerinayno inaad maartay urursanaataan iyo dadaalka ilaa hadda aad maartay aad ku jirtaan. marka halkaas waa meeshii inta ka horeysana meel kasto akadeemiyadu ay ku shaqeynayso meelaha ku meel gaarka ku soo dhawaada iska martiyeynina la imaada tababaradan sida la idin kugu furay idinka ayaa u dhaxaad u noqon doontaan. tababarkan oo loo qabtay konton dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa la xiriira habeynta qoraalka iyo ku hadalka afka Soomaaliga iyo suugaantiisa waxayna arrintani ay qayb ka tahay qorshaha Akadeemiyada Goboleedka afka Soomaaliga ay ku horumarinayso afkeena hooyo. Mawlid Maxamed Sabriye, telefishinka qaranka Muqdisho.